wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida iyo daafaha caalamka ka joogtaan halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka qaranku ku leeyahay magaalada Muqdisho kuna soo dhawaada warka habeenimo qodobada warkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxda qaranka ayaa ka tacsiyay geerida ku timi Allah oo naxariistay Cabdi Muriidi Dheera Ajakis oo kamid ah jilayaasha Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidamada lugta ee wadanka Uganda horyaalka 37 ee ciyaaraha fudud ee Soomaaliya ayaa maanta isna si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho khibaraadka dibaddana waxaad daawan doontaan haddii eebba idmo xisbiga bidixda dhexe ee wadanka Jarmalka oo si dirqiya uga guuleystay xisbiga Angela Merkel markale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay Xamse Xaaji Maxamuud Raadeeye ku soo dhawaada warkii oo intaasi ka sii faahfaahsan haddii aan u guda galo qodobka ugu horeeya warkeena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo iyo madaxda qaranka ayaa ka tacsiyay geerida ku timi Allah oo naxariistay Cabdi Muriidi Dheera Ajakis madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyele u diray qoyska qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay Allah oo naxariistay marxuum Cabdi Muriidi Dheera Ajakis oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa xusay in marxuumku ahaa jilaa majaajilaystay iyo barnaamij soo saare qayb weyn ka qaatay nabadeynta iyo horumarka dalkeena isagoo ummadda Soomaaliyeed u soo gudbin jiray sheekooyin faneed iyo barnaamijyo maandhis ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isaguna ka tacsiyay geerida ku timaaday Allah oo naxariistay Cabdi Muriidi Dheera Ajakis oo ahaa jilaa Soomaaliyeed oo si weyn looga dhex yaqaano bulshada Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanyele u dirayaa qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ka geeriyooday Allah oo naxariistay marxuum Cabdi Muriidi Dheera Ajakis oo ahaa jilaa iyo majaajilaysto weyn oo soo saari jiray barnaamijyo lagu kobcinayo wacyiga ummadda Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Wali Ibraahim Sheekh Muude ayaa iyaguna ka tacsiyay geerida ku timi Allah oo naxariistay majaajilaystaha Cabdi Muriidi Dheera Ajakis